waan ku bilaabayaa anigoon ka reebayn ku xiraheeda una taagan iimaankii saadana kama reebayay suuragelisa weeye bilow barnaamij maxnaaniya bogaadin bisinka aan ku bilaabay bismillaahi raxmaani raxiim waa barnaamijkii la magac bahay taariikhda fanaanka waa barnaamij aan uga hadli doono taariikhda fanaanada caanka ah ee baryahanba laga daba dhacay Sadio Siman barnaamijka intaan u gudagelin aan ku daafurno mid kamid ah kaalmaha sugaanta ay ku luqayso fanaanada qaranka ama fanaanada shacabka sidaad u taqaanaan ama fanaanada codka macaan ee Sadio Siman waan jecleen balse waqtiga oonu kulaalaya aawiis aanu gudagalna taariikhda fanaanada caanka ah ee Sadio Siman magaceeda saxda oo sadecan waxaa la yiraahdaa Sadio Cabduqaadir Maxamed waxa ay ku dhalatay magaalada Muqdisho waxayna ku soo barbaartay halka ay ku dhalatay oo ah gobolka Banaadir degmada Yaaqshiid xaafadda Miisaanka Dhuxusha Sadio Siman inta ay fanka soo galin waxaa loo yaqiino Sadio Gurey markii ay fanka soo gashay waxaa loo bixiyay Sadio Siman kaasoo u bixiyay abwaankeeda qaaliga ah abwaan Cabdirashiid anuusii gudagalnay taariikhda fanaanada caanka ah ee Sadio Siman waxa ay dugsiga quraanka ku dhamaysay sanadkii 2013 dabayaaqadiisii waxay sidoo kaleeto dhamaysay iskuulka macadka sanadii 2016 Al-Aqsa Primary and Secondary School iyadoo haatan dhigata jaamacadda Daarusalaam University waxa ayna ka baratay kulliyadda BBA Sadio Siman Sadio Cabduqaadir Maxamed waxa ay fanka ku soo biirtay sanadii 2016 bishii May Sadio Siman intii ay fanka ku jirto waxa ay baxday 3 safar oo kala duwan safaradaasi oo ay ku kala tagtay gobolada dalka iyo dalka tariskana la ee Kenya safarkii koowaad waxay ku aasatay Kismaayo waxaa lagu xasuustaa showgii weynaa iyaga iyo abtigeed Maxamed Jawaanle ay ku soo wada dhigeen showgaas oo hoolkii intuu bixsamay ay shacabkii ay dhulka fadhiisteen waa showgii ugu horeeyay ee Sadio Siman iyo abtigeeda ay isla qabtaan sidoo kale waxay show u qabatay dalka Nairobi kaasoo ah showgeedii ugu horeeyay ee iska abaabulata intii ay fanka guda jirtay waxay sidoo kale safar ku aasatay dalka Kenya oo aan kugu sheegay sidoo kale waxa ay safar ama bax u aasatay gobolka Somaliland ay sidoo kale safar ku tagtay iyaga oo fara badan Sadio Siman waxa ay ka qayb gashay showyo badan ay wadanka ku qabsadeen fanaaniin dhowraan si kastaba ha loo aaneeyay Sadio Siman ayaa mar walba markii waraysi ay TV siinayso waxa ay halkudhig ay ka dhigataa in ay gabdhaha Soomaaliyeed ee fanka soo galaya iyo kuwa ku jira in ay halkudhig ay uga dhigatay niqaabka yaan la tuurin ama xijaabka yaan la tuurin waxaan maanta halkaan ku baranay taariikhda fanaanada caanka ah ee Sadio Siman magaceeda oo saddexan waxa la yiraahdaa Sadio Cabduqaadir Maxamed
soo jeediyuhu waa anigoo cabdikaafi cabdi maxamuud ah. intaa barnaamij caynkan lamida intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo ammaano allah. barnaamijku waxaa gacan igala geystay dhanka farsamada ah wariye cabdiraxiin taaca. waxaa barnaamijka sidoo kaleeto soo diyaariyey anigoo cabdikaafi cabdi maxamuud ah. waxaa barnaamijka sidoo kaleeto tabintiisa soo jeedintiisa gacan weyn ka geystay wariye daahir calisow oo aada wada taqaanaan. waliba waxaan idin leenahay waan idinkaga tegaa mid kamid a kaalmaha sugaanta ee ku luqayso fanaanada caanka ee la magacbaaday xidigta muqdisho. waxaan idinkaga tegaynaa mid kamid a kaalmaha sugaanta ee aadka u jeceshahay heestii dhagax buur.